بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد marka le waxaad kusoo dhawaataan casharkeenii nutritionka iyo dietka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 5 waxyaalood ama 5 cunto oo mar walba lagaaga baahan yahay in aad ka fogaatid si aad ugu noolaatid nolol caafimaad qabta sidoo kale si aad culeyska ku saaran jirkaaga ee zaa'idka ahna aad mataqaanaa u lumisid ama askeeridid cuntada koowaad aan rabo inaan ka hadlo waxaa waaye cuntooyinka la yiraahdo processed foodska communitygeena ama bulshadeena aad u isticmaalaan waxaana kamid ah baastada waxaa kamid ah canjeelada waxaa kamid ah pancake waxaa kamid ah rootiga cad waxaa kamid ah sonkorta mataqaana la isku dardarayo mataqaana laga sameeyay waxyaalaha kale marka processed foods sababta loo yiraahdo waxa waaye cuntadaas laba midba way ku dhacdaa kow steps fara badan bay soo martaa labana waxa waaye waxa lagu daraa waxyaalo badan oo kala duwan marka saa daraadeed waxa la yiraahdaa processed foods dhibaatada ugu weyn ee leeyihiin cuntooyinka la yiraahdo processed foods waxa waaye mar walba cuntid sonkortaada kor bay u kiciyaan marka glucose-kaaga ama insulinka hormoonka la yiraahdo kor bay u kiciyaan markaasna dhibaatooyin badan ama xanuuno badan baa khatar ugu jirtaa marka waxaan rabnaa inaan iska ilaalino cuntooyinka processed foods la yiraahdo cuntada labaad aan rabnaa inaan iska ilaalino waxaa la dhahaa refined foods haddii aan tusaale kasii bixiyo waxaa kamid ah bariiska cad aan cunno waxaa kamid ah cerealka waxaa kamid ah chipska waxaa kamid ah cuntooyinka packageka ah oo boqosyada la soo geliyo waxaa kamid ah dressingka aan ku shubano markaan saladka iyo cunayno qudaarta waxaa kamid ah ketchupka waxaa kamid ah caanaha macaan ee condensed milkiga la yiraahdo waxaa kamid ah yogurtka marka cuntooyinkaas refined food sababta loo yiraahdo waxa waaye cuntooyin asalkii laga kaxeeyay waaye marka asalkii si ahaayeen waa laga wareejiyay si kale loo dhigay marka iyagoo saas ah oo chemical lagu daray ayaa waxa la keenay suuqa si aad adigu u cuntid marka package baa la soo geliyaa mana xumaadaan ama shelfka la saaraa ma xumaadaan marka wax badan bay ku haynayaan dhibaatada ugu weyn ee leeyihiin cuntooyinka refined foods waxa waaye low nutritionkooda ama nafaqadooda waa very low aad ay u haysaysaa marka waxa waaye waxa cunaysaa cunto calorie-gooda aad u badan yahay balse wax nafaqa aan lahayn marka cuntada saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye cuntooyinka la yiraahdo greasy foods macnaha waxa waaye cuntooyinka saliidda aadka looga badiyay cuntooyinkaas waxaa kamid ah chickenka friedka ah oo saliidda lagu shiilay waxaa kamid ah french frieska caruurteena aan siino mcdonald's-ka laga soo iibiyo ama guryaha lagu kariyo ama maqaayaasha lagu sameeyo waxaa kamid ah sambuuska waxaa kamid ah burka waxaa kamid ah malawaxa waxaa kamid ah mataqaanaa hilibka aan cunno ee saliidda lagu kariyay waxaa kamid ah suqaarka waxaa kamid ah pizzada cuntooyinka dhibaatooyinka ugu weyn ay leeyihiin waxa waaye aad waxa uga buuxo faatka unhealthy-ga ah marka dadka badanaa cholesterol-ka uu ku dhaco waxaa lagu tilmaamaa dufan fara badan jirkooda inuu ku jiro marka saa daraadeed cholesterol ayaa laga yaabaa in ay kugu dhaco cuntada afraad aan ka hadlayno waxaa waaye oo loo baahan yahay in aad mar walba iska ilaalisid cuntooyinka la yiraahdo sugary foods waxaa waaye cuntooyinka ay ku badan yihiin sonkorta waxaa kamid ah xalwada waxaa kamid ah keega waxaa kamid ah cookiska caruurta aan siino macmacaanka aan cunaa kamid ah syrupka aan ku darsano pancake kamid ah candiska kamid ah nacnaca ice creamka ayaa kamid ah muffinka kamid ah shaaha ayaa kamid ah marka cuntooyinkaas waxaa ka buuxo sonkorta qaybta la yiraahdo high fructose sonkorta qaybta la yiraahdo fructose waa kasoo hadalnay fructose casharadeena horay laakiin fructose ayaa waxay ku tahay very high saa daraadeed waxa waaye waxay aadaan beerka liverka iyo pancreaska ama beeryaraha waxa aan u naqaano marka cuntooyinkaas sugary foodska ah mar walba waa in aan ka fogaano cuntada shanaad aan mar walba aan ka fogaanayno si aan caafimaadkeedana mataqaana u noqdo caafimaad fiican weightkan aan iska yaridno waxa waaye cabitaano mixed liquids cabitaanada la yiraahdo mixed liquids waxaa kamid ah biyaha qasan waxaa kamid ah Pepsiga soodaha fantada waxyaalahan mataqaana caruurta aan siino waxaa kamid ah apple juice-ka waxaa kamid ah mango juice-ka waxaa kamid ah orange juice-ka biyaha qasan oo dhan ama juice ha ahaadaan ama biyaha guriga aan ku qasno ha ahaadaan ama biyaha maqaaxiyaasha aan ka cabno ha ahaadaane waxaa la yiraahdaa mixed liquids waxaa ku badan waxyaalo fara badan sonkortii hadda aan kasoo sheekeynay ee fructose-ka aan dhahaynay
oo sonkorta macmalka ah aan asalka ahayn oo laga sameeyay waxyaalaha macaan aad bay ugu badan tahay. Sonkortaasna waxay aad u abaartaa liverkaaga aada, liverka waxay ka hor istaagtaa shaqooyinkii uu qaban lahaa. waxaa kaloo ku jira mataqaanaa dufanka xun unhealthy fatka ku jira. marka shantan cunto haddaad iska ilaalisid waxaan kuu hubaa hadduu alla idmo inaad ku noolaan doontid nolol caafimaad qabta, weydka ama culeyska zaa'idka ee ku saaranna wuu kaa dhacayaa. marka insha allah casharkan cashar ku xig intaas ka arki doono waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.